annaga oo badan oo dhalinyaro aan wada soconay waxaan fadhinay maqaayad banaadir beach la yiraahdo hal mar ayaa qarax xoogan u dhacay waxaana daatay dhammaan muraayadaha maqaayadii aan ku jirnay intooda badan kadib argagax iyo kala carar badan ayaa dhacay dadkii halkaa bay ku kala carareen dad badan oo aan ka mid ahaa waxaa u suurta gashay in daaqada maqaaxida qaybta xigta dhinaca badda ee xeebta inay furaan oo halkaa ay ka boodaan isla halkaa ayaa dad badan oo haween iyo caruur ay igu suurta gashay inaan dibadda uga soo saaro iyadoo rasaasto ay dhacayso kadibna halkaasaan kasoo boodnay maqaayadda adinka aad ku jirteen muraayadihii iyo dhagaxaantii ay soo daateen dad ku dhaawacmay oo waxyeelo ay kasoo gaartay ma jiraan dad dhaawacyo koobab jabjabay iyo muraayado daatay ay dhaawacyo yaryar kasoo gaareen baa jiray kadib iyagoo dhaawacyadii qaba halkaa cararay maadaama rasaas ay dhacaysay oo xabaduhu aada u dhacayeen marka dumarka iyo caruurta aad ii sheegtay inaad soo badbaadiseen ayaga maxay meesha ka hayeen xilligan habeennimada dadka waxay isugu jireen dad meesha ku fiidsanayay oo waktigaas yimid dadna galbihii intay yimaadeen bay wakti badan meesha ku qaateen marka waxay iska ahayd maqaayadu waktiga ay wax dhacayeen wakti caadi oo laysaga fiidsado dadka qaar qoys bay u socdeen oo guryahooda kasoo tegay oo rabay in qabowgaas xeebta neecawda ay qaataan ay maqaayada joogaan waktigaa kadibna ay halkaa ka tagaan markii qaraxii uu dhacay rasaasii aad maqashay adiga maxaad dareemtay aad bay dadku u qalqaleen waa la kala cararay meesha qofba meeshii uu aadi karaa jihadii u ordi kara ayuu u cararay dad badan oo anigu aan ka mid ahaa daaqadaas ayaan ka boodnay sidaa kuu sheega ka horna waxaa lagu kala cararay jikooyinka iyo suuliyaasha qololkii meesha ku yiilay dad badan baa isku riixay oo halkaa ku cararay kadibna daaqadii suuliga xitaa inta la furay oo wadada dhinaceeda xigtay dad badan ay ka boodeen dadna sidaan kuu sheegay oo aniga waan ka mid ahaa dhinacaas xeebta u cararno dhinacaasaan ka boodnay dad way jireen meesha laga boodaya iyo dhulka oo aad u kala dheeraa oo dumarna aad dareemi karta inaysan ka boodi karin ee caruur qaarkood ay soo gaareen waxyeelo kale marka markii dambena waa ay ka baxeen kadibna dhinacaas xeebta ayay ku carareen dadkii badbaaday oo dhinacaas degmada kaaraan ayay dadkii oo idil isugu carareen wixii gaari halkaa ka heli karee baabuurtooda banaanka u taagnayn halkaa ay ku carareen ciddii lugeyn kartana halkaasay ka lugayso adiga marka ma qaraxii kugu horeeyo aad goobjoog u ahayd baa kan mise qaraxyada kale ee muqdisho hore uga dhacayna goobjoog baad u ahayd qaarkood qaraxyo dhacay oo aan tagay way jireen laakiin qarax meesha aan joogay u dhowaa ama ka dhacay kan baa iigu horeysa runtii waxaadna dareemi kartaa markii meesha aad joogto muqdisho isla meesha kale qarax uu ka dhaco durbo waxaan xusuustay qaraxyadii kan ka horeeyey ee xeebta liida ka dhacay oo dad badan ay ku dhinteen marka nafsiyan waxaad ka sabraysaa naftaadii waxaad isu diidaysaa allah waxaad aaminaysaa in halaadan ku badbaadeynin laakiin sidii maysan noqonin oo alxamdulilah waan badbaadnay markii dambe